wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Biixi Iimaan Cige ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ugu qayb galay shirka 23aad ee wasiirada maaliyadda madasha iskaashiga geeska Afrika oo ay martigelinayso dowladda Itoobiya oo ah hoggaanka hadda ee madashani oo 3 biloodlaha ah ayaa diiradda lagu saaray 5 sano ee la soo dhaafay wixii u qabsoomay dalalka ku mideysan madashani iyo qorshaha mustaqbalka hiigsanayaan ee u badan yihiin maalgelinta mashaariicda horumarineed oo helayaan dalalka geeska Afrika. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo khudbad kooban ka jeediyay kulanka ayaa tilmaamay inay muhiim u tahay in diiradda la saaro sar u qaadida mashaariicda maalgelineed ay helayaan dalalka iyo gobolada si gaar ah Soomaaliya ayuu sheegay in ay mudnaan gaar ah ay siinayso maalgelinta ilaha dhaqaale ee dalka. wasiir Biixi waxa kaloo hadalkiisa uu ku sii sheegay in loo baahan yahay xoojinta iskaashiga ganacsiga ee geeska Afrika. shirkani ayaa intii uu socday waxa kale oo hadalkiisa uu sii raaciyay in Itoobiya ay hoggaankii 2 sano ee la soo dhaafay ay Soomaaliya ku wareejin doonto hoggaanka dalka iskaashiga iyadoo xilka gudoomiyaha si rasmi ah u wareegi doono wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk Soomaaliya. shirkani kiisa xiga ee 24aad oo lagu qaban doono magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Zamzam Maxamuud, Hon Public Media.